subax wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. waa subax Arbaca bisha February waa 10 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa si wada jira idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacadda iyada saaki caalamka ku maqli doontaana waxaa ka mid ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay galab kulan ka yeeshay xaaladda Soomaaliya. intaasina waxaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii saaki caalamku idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Maxamed Cabdi. inta haddii la yidhaahdo idaacadaha soo socdaan ku kulmi doono sidaas iyo subax wanaagsan. waxaad kaloo dhegaysan doontaan dowladaha Iiraan iyo Maraykanku isku mandhaafsan xalinta dhibaatooyinka soo gaadhay heshiiskii nukliyeerka ee dalka Iiraan. shir lagaga hadlayay xidigiska iyo kaltirsiga Soomaalida oo ka dhacay jaamacadda Djibouti dalka UK oo dadka dibadda uga imanaya amray in jeebkooda ay isku karantiimaan. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari. mahadsanid Sandere. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa iclaamiyay shir ay isugu yimaadaan 15 bishan Febraayo madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada. qoraal ay madaxtooyada Soomaaliya ku faafisay barta Twitterka ayuu ku sheegay madaxweynuhu in shirkani ka dhici doono magaalada Garowe. waxay arrintani ka dambeysay markii toddobaadkii hore ay burbureen wadahadaladii dhuusamareeb ee u dhaxeeyay madaxda federaalka iyo kuwa heer gobol. dhanka kale bayaan ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu diiday in shirka uu ka dhaco magaalada Garowe. Puntland ayaa ku talisay in shirka uu madaxweynaha ku baaqay uu ka dhaco magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. shirkan cusub ayay madaxda mar kale isku dayi doonaan inay heshiis kaga gaaraan ismarwaaga ka taagan doorashada xilli uu cadaadis xoogan kaga imanayo musharaxiinta mucaaridka iyo xubnaha beesha caalamka. golaha sanadka Maraykanka ayaa talaadadii shalay cod ku ogolaaday in si rasmi ah loo bilaabo dhageysiga dacwadda xilka qaadista madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. qareennada Trump difaacaya ayaa ku dooday in aqalka odayaasha uusan sharci dastuuri ah u haysan dhageysiga dacwadda uu aqalka wakiilada ka soo gudbiyey madaxweynihii hore, taasoo ah kicin fal lagu ridi rabay dowladda kadib weerarkii ay taageerayaashiisa bishii hore ku qaadeen xarunta Koongareeska. cod ay aqalka odayaasha u qaadeen socodsiinta dhageysiga xilka qaadista Trump ee aqalka ayaa waxaa ugu codaysay 56 mudane halka ay ka soo horjeesatay 44. maanta iyo biri ayaa lagu wadaa in muddo 16 saacadood ah oo 2 maalin loo kala jaray uu sanadka dhageysto doodaha labada dhinac oo kala ah guddi ka socda aqalka wakiilada oo dimuqraadi ah iyo qareennada difaacaya madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. dhageysigaasi kadib ayuu sanadka u codayn doonaa xilka qaadista Trump, laakiin dimuqraadiyiinta oo hadda haysta aqlabiyadda sanadka ayaa u baahnaan doona ugu yaraan 17 mudane oo jamhuuri ah si ay dembi ugu helaan Donald Trump. dhageystayaal warkii dunida subaxnimadan waa naga intaa. aad iyo aad buu mahadsan Nuur Xasan Nuur Bukhari oo warkii dunida inala socodsiinayay. aynu ku bilownay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan uu shalay galab yeeshay kaga hadlay arrimaha Soomaaliya. kulanku albaabada u xidhnaayeen ayaa gabagabadiisii madaxweynaha golaha ee bishan February Barbara Woodward oo danjiraha dalka Britain u joogtay qaramada midoobay ay akhriday warmurtiyeedkii shirkaasi. warbixin kooban oo haddaba shirkaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Nuur Xasan Nuur Bukhari. kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa warbixin looga dhageystay ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Iswan. golaha ayaa ugu baaqay madaxda Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu ambaqaadaan wadahadallada si loo diyaariyo doorasho cusub oo dalka ka dhacdo. Barbara Woodward oo ah safiirka Britain u joogtay qaramada midoobay ayaa akhrisay warmurtiyeedka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. The members of the Security Council called for Somalia's leaders
to resume their dialogue urgently and work together in the interest of the people of Somalia. waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxa ay ugu baaqayaan hogaamiyayaasha Soomaaliya inay si degdeg ah dib ugu laabtaan wadahadallada si wadajir ahna ay u wada shaqeeyaan iyaga oo fiirinaya danaha dadka Soomaaliyeed. waa in heshiis guud laga gaaro qabanqaabada iyo qabashada doorasho loo dhan yahay, taas oo ah in ay ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan. iyadoo taasi la tix raacayo ayaa golaha la ogeysiiyey ku dhawaaqista wadahadallo kale oo dhici doona 15 bishan February. golaha ammaanka ayaa walaac ka muujiyay fashilka ku yimid shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Dhuusamareeb, kaas oo ay isku fahmi waayeen madaxweynaha dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada. The members of the Security Council welcomed the efforts made by the leaders of the federal government of Somalia and the federal member states to find agreement on the implementation. waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhaweeyeen dadaalka ay muujiyeen madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ee xubnaha ka ah dowladda si ay heshiis uga gaaraan dhamaystirka heshiiskii 17 Sebtembar ee dhigayay in la qabto doorasho dadban. golaha waxa uu og yahay in horumar la sameeyay, laakiin waxa uu ka walaacsan yahay in wadahadalladii Dhuusamareeb ay ku soo dhamaadeen heshiis la'aan. golaha ammaanka ayaa bogaadiyey doorka ay AMISOM ka qaadanayso wadahadallada dhinacyada Soomaalida. dhinaca kale, golaha ammaanka ayaa cambaareeyay weeraradii ay dhowaan Al-Shabaab ka geysteen Soomaaliya. waatan mar kale Barbara Woodward. The members of the Security Council condemned terrorist attacks by Al-Shabaab. waxay tiri xubnaha golaha ammaanka waxay cambaareeyeen weerarada argagixiso ee Al-Shabaab. goluhu wuxuu xaqiijinayaa midnimada dhuleed ee Soomaaliya. shirkii golaha ammaanka ee talaadadii shalay dhacay oo ahaa mid ay albaabada u xirnaayeen ayaa waxaa ku baaqday dowladda Britain maalin kadib markii la dhaafay muddadii loo qabtay in madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada Soomaalida ay go'aan uga soo saaraan doorashada dowladda cusub ee Soomaaliya. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in 22 bishan uu mar kale ka shiro arrimaha Soomaaliya, iyadoo la filayo in shirkaasi uu ku cusboonaysiiyo muddada howlgalka ciidanka midowga Afrika ee ka howlgala Soomaaliya. aad iyo aad buu mahadsan yahay Nuur Bakhaari oo warbixintaasi inala socodsiinayay. dalalka Iiraan iyo Mareykanka ayaa isku maandhaafsan sidii loo soo celin lahaa kalsoonidii labada dhinac ee la xiriirta heshiiskii xakamaynta barnaamijka nuclearka ee Iiraan, iyadoo labada dal uu midka kale u sheegayo in uu tallaabada koowaad isaga qaado. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahire ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Cismaan Zaxnuuni. madaxweynaha dowladda Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa sheegay in dowladdiisa aysan ku laaban doonin fulinta shuruudaha heshiiska barnaamijkeeda nuclearka tan iyo inta ay dowladda Mareykanka dib ugu laabanayso heshiiskaasi. xasan Ruuxaani ayaa u sheegay warbaahinta dalkiisa maamulka cusub ee dowladda Mareykanka in aysan weli qaadin tallaabo wanaagsan oo ku aadan dhinaca dowladda Iiraan. sidoo kale madaxweynaha dalka Iiraan ayaa xusay in dowladdiisa ay fulin doonto heshiiska haddii dhinacyada saxiixa heshiiska nuclearka ay fuliyaan. hadalka madaxweyne Ruuxaani ayaa yimid saacado kadib markii wasiirka mukhaabaraadka dalka Iiraan Maxamuud Calawi uu ka digay in dowladdiisa ay qaadayso dhabaha ay ku samaysanayso hubka nuclearka haddii ay sii socdaan cunaqabataynta saaran Iiraan. waa sidii uu baahiyey TV-ga qaranka ee dalka Iiraan. barnaamijkeena nuclearka waa mid nabadeed, fadwada murshidkana waa mid mamnuucaysa in hubka nuclearka aan helno, laakiin haddii lagu qasbo dowladda Iiraan dhankaasi waa ay qaadaysaa, mana aha qalad ay gelayso Iiraan ee waa mid ay gelayaan dowladaha reer galbeedka, ayuu yidhi Maxamuud Calawi oo la hadlayay TV-ga dalkiisa. wasiirka mukhaabaraadka ama sirdoonka ee dalka Iiraan ayaa hoose ka xariiqay in dowladdiisa aysan lahayn qorshe ay ku doonayso in ay hesho hubka nuclearka marka la eego duruufaha haatan ka jira mandiqada. arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii Axadda murshidka guud ee dalka Iiraan Cali Khamenei uu ku booriyey dowladda Mareykanka in ay qaado cunaqabataynta dalkiisa. waa haddii maamulka Mareykanka uu doonayo buu yidhi in dowladda Iiraan ay fuliso heshiiska nuclearka oo ay la saxiixatay quwadaha caalamka sanadii 2015.
laakiin madaxweynaha dowladda maraykanka Joe Biden ayaa iska diiday baaqa ka soo yeeray dhanka Iiraan waxa uuna sheegay in xukuumadda Washington aysan qaadi doonin tallaabada ugu horeysa. baarlamaanka dalka Iiraan ayaa dhowaan ansixiyay qaanuunka mamnuucaya baarayaasha caalamka ee hubka nuclearka in ay galaan dalkaasi, kaasoo ka dhigan in dowladda Iiraan ay ku xadgudubtay heshiiska barnaamijkeeda nuclearka oo ay la saxiixatay dowladaha awoodda badan ee caalamka. Tallaabadan ayay xukuumadda Teheraan ay qaaday kadib markii la dilay caalimka reer Iiraan Muxsin Fakhri bishii Diseembar ee sanadkii hore. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal. wasaaradda caafimaadka dalka Britain ayaa xaqiijisay in dhammaan dadka ka soo socdaalaya dalalka uu ku badan yahay xanuunka COVID-19 gaar ahaan noociisa cusub la dejin doono hoteelo ay jeebkooda ka bixin doonaan. qorshahan oo bilowday Isniintii ayaa khasab kaga dhigaya dadka Britain iyo Ireland degan ee ka soo noqonaya 33 dal oo xanuunkaasi laga helay. wararkii ugu dambeeyay qorshahan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. go-aankan oo ay dowladdu qaadatay bishii hore ayaan la hubin, laakiin xogayaha caafimaadka Britain Matt Hancock ayaa maanta ku dhawaaqay dadka aan gelin hoteelada ay dowladdu u qorshaysay in ay 10 caanamaal ku jiraan ayaa la ganaaxi doonaa 10,000 oo giniga Ingiriiska ah. qorshahan ayaa sidoo kale laga xaajoonayaa in lagu daro mandaqadaha waqooyiga Ireland iyo Walashka. mudane Hancock oo aqalka sare ee baarlamaanka Britain u sheegayay go-aankan ayaa sheegay in dadka ka been sheegay inay ka soo socdaaleen wadamadaasi ay mutaysan karaan 10 sannadood oo xadhig ah. waxaa kale oo uu sheegay inay dowladdu la heshiisay 16 hoteelada la seexdo oo ay diyaariyeen 4,600 oo sariirood. dowladda ayaa sidoo kale diyaarisay 2 qaab oo ay dadka uga eegayso xanuunka marka la geeyo hoteelada. maalinta 2 iyo maalinta 8 ee 10kaasi caanimaal ayaa xanuunka dadka laga baari doonaa. qaar haddaba ka mida dadka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ka qayliyeen ee xorriyadda shakhsiyaadka arrintani dhaawac ku keeni karto. marar badanna dalka Britain waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagaga soo horjeedo bandooyadii dalka la saari jiray. Samakaab Cumar Aadan oo bartay horumarinta caalamiga ah kana shaqeeya xarun ay leeyihiin urur u dooda xuquuqda aadanaha ayaa weydiiyey sida uu arko dadka ka biyadiiday qorshahan. dabcan arrintan waa loo arki karaa inay saameynayso xuquuqda qofka bini'aadanka gaar ahaan dadka Ingiriiska ama dadka u soo safraya Ingiriiska. maxaa yeelay qofka bini'aadanka xuquuqdiisa aasaasiga ah waxaa ka mid ah in uu qofku xilligu doono bixi karo meeshuu doono u socdaali karo. laakiin maadaama oo wadanku imika uu ku jiro xaalad u eg xaalad dagaal oo kale oo dagaal kula jiro xanuunkan coronavirus, run ahaantii xuquuqo badan ayaa meesha ka baxaya oo qofka markii hore haddii su-aal la geliyo qofku cabasho badan ka muujin lahaa. laakiin imika dad badan waxaa laga yaabaa inaanay arrintan aada uga soo horjeesanin. laakiin runtii waa arrin aada iyo aad runtii warwarkeeda wadata. maxaa yeelay qof kasta oo ka imanaya wadamadaas redlineka ah red zoneka ah waxa uu runtii la kulmaya caqabad adag oo ah inuu ama 1,700 lacag u dhiganta uu soo diyaarso oo hoteelkiisa iskaga bixiyo, ama inuu hadduu dafiro oo been ka sheegana inuu xabsi u diyaargaroobo. marka saameyn way ku yeelanaysaa kulley xuquuqdii qofka ee socdaalka, laakiin xaaladda taagan xanuunka ayaa ka weyn. xogayaha caafimaadka ayaa u sheegay xildhibaanada Britain in dadka ajabiya sharciyadan ay khatar gelinayaan dalka oo dhan, iyo in diyaaradaha soo qaadaya rakaabka ay sharciyan mas-uul ka yihiin in dadka ay saxeexaan qorshahan ka hor inta aanay soo qaadin. dadka diida in marka hore ay isbaaraan ayaa la ganaaxi doonaa 1,000 gini. qofka diida baaritaanka labaadna 2,000 oo gini ayaa la ganaaxayaa. maalmaha hoteelada lagu haynayana waxaa laga dhigayaa 14 caanamaal, iyadoo ganaaxana lagu dari doono 5,000 ilaa 10,000 inta u dhaxaysa. dadka kusoo noqonaya Britain waa in khadka internetka ay ka buuxsadaan hoteelada. lacagta ay bixinayaan waxaa ku jira qarashka baaritaanka xanuunka lagu eegayo. Ingiriiska oo lagu ammaano nidaamka ay u wadaan tallaalka ayaa marar badan shacabka waxaa lagu canaantaa in aanay ahmiyad weyn siinin oo hogaansanaanta waxyaabaha xanuunka xakameeya sida kala fogaanshaha iyo xidhashada marada afka lagu duubto.
cabdixaafid cawil ismaaciil VOA London. toddobaadkan waxaa dalka jabuuti lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay sidii loo soo saari lahaa kaltirsi ama kalandar ay soomaali leedahay. dood cilmiyeedkan oo ka dhacay xarunta jaamacadda jabuuti ayaa waxaa ka qayb galay cirmaallo, taariikhyahano, cilmibaarayaal iyo qorayaal isaga kala yimid dhammaan gobolada soomaalida. aqoon-yahankii ka qayb galay shirkaasi ayaa waxaa ka mid ahaa maxamuud cabdi cusmaan oo isagu ka mid ahaa dadkii shirka la tegay kaltirsi uu isaga soo saaray. shalay ayaan khadka telefoonka ee magaalada muqdisho kula xidhiiray maxamuud. ugu horeyna waxaan weydiiyey waxyaabihii shirka looga hadlay. wuxuu ku saabsanay midaynta kaltirsiga soomaalida ay leedahay maamulada shanta oo ay kala degan tahay ama shantan soomaali waxa loo yaqaano kaltirsigeeda ama dhaqanka iyo hidaha iyada ay wax u leedahay habka tirsiga sanadka iyo 12 bilood iyo 7 maalin iyo habsocodka galaksiyada amaba meerayaalka noocaas oo ku saabsanay in mataqaana ay iska waraystaan dadka loo yaqaano cirmaallo. macnaheeda cirmaal waa dadka xidigiska iyo aqoontooda leh ayaa shanta soomaali iskaga yimaaday meeshaasayna mataqaana aqoontooda iyo mataqaana iyo waayo aragnimo isku waraysteen. cilmi ahaanna isaga mid ay noqdeen, scientific ah isaga mid ay noqdeen. wixii magac ah oo mataqaana ama afguri ama waxa loo yidhaahda lahja deegaan tilmaamayana kulligoodu kala duwnaaday, laakiin scientific ah ama cilmiga 365 maalin sanadka uu ku kooban yahay iyo isbuuca 7 iyo 12 bilood oo intaas oo loo yaqaano dabshidka waa laisku waafaqay cilmi ahaan. magac ahaanna mataqaana automatic waxay noqotay deegaanada iyo waxyaalaha hadalka dhexdhexaadka mataqaana magaca dhexdhexaadka ayaa la qaatay. waayahay marka maxamuudow, soomaalida kaltirsi ahaan waxa ay inta badan isticmaalaan kan miilaadiga, taariikhda miilaadiga iyo tan hijriga. marka kan soomaaliga ma jiriyey oo hore miyay u isticmaali jireen soomaalida soomaalida kaligeed horta u gaar ma ahan. waxaan waxa waaye kushati calendar ama kaltirsigan waxaa iska leh ay ka dhexaysaa qowmiyadaha la yidhahda kushatiga, laakiin si taas ah waxaa u tadbiiqiyey ama taas u isticmaalo shucuubta ama dadka soomaalida ah ayaa aad u isticmaalo oo mataqaanaa dhaqaalahooda ayaa ku bays garaysan. tusaale ahaan sanadka hadda waa jimco, macnaheeda marka waxaa dhammaaday dayr, jiilaalna waa dhammaaday. hadda roobaan tirsanaynaa sanadka mataqaanaa waa gu iyo dayr iyo xagaa iyo jiilaal waaye. marka hadda waxaan ku jirnaa gugi ayaa tirsigiisa noo bilowday. marka qaabkaas waaye. marka dhaqankaasi marka wuxuu ku midaysan yahay soomaalida ama dhaqandhaqaalaha wuxuu ku saabsan yahay beeraha, kalluumaysiga oo badda ah iyo xoola guurtada mataqaanaa xilliga la hayaamaya ama xilliga mataqaanaa barwaaqada ay tahay. cilmiga noocaasuu ku saabsan yahay. waxawna la socdaa meerayaalka mataqaanaa 7 ah iyo halbeegyadooda. waayahay marka maxamuudow, waxaan u fahmay shirkii jabuuti lagu soo gebagabeeyey oo ay isugu yimaadeen cirmaalada soomaalida in looga hadlay midaynta sidii loo heli lahaa kalandar ama kaltirsi oo ay soomaali oo dhan leedahay oo ay ku fahmi karaan maaragtay sanadka. si fiican. marka maxaa ka soo saarteen gebagabadii waxaan ka soo saarnay in mataqaanaa kaltirsigaasi soomaalida aan u sheegayno inuu yahay mid soo jireenna soomaalida cilmi khaasa oo ab laga soo gaara ay leeyihiin. aan horta kuwa soomaalida fariin ugu faraynay. waxaa kaloo aan mataqaanaa aan samaysanay guddiyo iyo xarumo oo aan dowladaha shanta soomaaliyeed aan ku kala lahaa doono si aan ula soconno saadaasha ama aan warbixino. aan marti aan ugu noqon mataqaanaa bilaha iyo sheegidooda iyo xilliga ramadaanka ama bisha ramadaan oo kale la sheegayo kale aan dowlada sacuudi oo mataqaana dowladaha sida sacuudiga oo kale laga warad suga aan marti ugu noqon doono. annaga aan sheegi doono
oo nagala wardhoori doono gruubkeenna mataqaanaa shanta ay ka kooban soomaaliya idil si mataqaanaa arrimaheena diintan aan u ilaalino keenna dhaqaalan aan u ilaalino aan la soconno jawiga iyo khataraha dhacayo marka intaasaan kusoo gabagabaynay wixii marka dhiman mataqaanaa qof kasta oo cilmigaas yaqaana waa soo dhaweyneynaa oo wax ku darayo warbixin dheerna ka hayo cilmigaasi insha allahu tacaala safxad furan waaye waana horumari doonaa insha allahu tacaala maxaa yeelay cilmiga hadda gregorianka calendarka hadda december ilaa january ilaa december wuxuu saxmi doonaa qalalaa ka jiro 2200 uu saxmi doonaa intaasi waxaa ku socon doona editiga ku socon doonaa ama mataqaanaa sixida ku socon doonto annagana sidoo kale keenna ma qaldano oo waa nadiif laakiin afguriya tiri badan qaamuusan u yeeri doonaa oo badan waan dhihi doona qaamuuskan wuxuu ka hadlaa magacaha bilaha iyo meelaha la kala degan yahay iyo magaca loo yaqaano qaamuuska bilaha iyo sanadka iyo ayaamaha waxaasaan samayn doonaa hadduu alla idmo laakiin scientific ah cilmiyahan waa isku waafaq kaasi waxa uu ahaa maxamuud cabdi cismaan oo isaga oo jooga magaalada muqdisho khadka telefoonka iigu warramay. subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal allah u naxariistay haashim cumar xaashi oo 20 sano jir ahaa ayaa toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. Booliiska ayaa xilligaasi sheegay inay wadaan baadhitaan la xiriira ciddii dilkaasi ka dambeysay. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Urxaaji ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Fadxiye Warsame Faarax oo ah hooyada dhashay marxuumka, waxaana uu ka waraystay wixii ku soo kordhay dilka iyo haddii booliisku la wadaagay xog hor leh. hase yeeshee waxaa marka hore Xuseen Urxaaji oo hooyo Fadxiye weydiiyey sida wax u dhaceen. inankaygan 3 hours ka hor waan isla joognay gudreyntii aan raadinay Branton baan joognay markii dambe uu soo baxay inama yaroo wuxuu raacay oo casho isla soo cunayeen marka cashadoodii soo dhameysteen iyo maxaa la dhahaayay inamadii uu drop gareeyay ka bacdi gurigiisii ku soo noqday gurigiisii isagoo garaashka galaya marka ciidahan ka heleen. waa tahay bal ka waran dhanka waxbarashada sidee buu ku ahaa markay timaado ila dhaqanka dadka xaafadda la deganaa. maasha allah amazing weeyaan kaas iskoolkiisa akhlaaqdiisa xaafadda dhaqankeeda cidna lama hadli jirin dadka hadla ma ahayn qofkii haa yiraahdo hay inta kalena wuu iska aamusnaan jiray qofna kuma darsanaynin waa dee inaan edeb badan oo akhlaaq badan buu ahaa wax kaloo maanta aan sheegi karo ma jirto xaafadda weli wax ka sheeganaya maanaan arag iskoolkiisa wax ka sheeganaya maanaan arag dhibaato weligiis muu sameynin alxamdulilah jaamacaddu second yearkii buu ku jiraa. marka Fadxiye waxaa ka warantaa bal maxaa loo aaneynaya maxay kula tahay sababta loo beegsaday Allah u naxariistay Haashim? waxaa loo beegsaday kolle xaafadan la degan yahay iyo xaafad kalaa isweerarta waxaan anagu aan shaqo ku leenahay ma aha labada dhinacna kuma jirin inaan innocentiyu iska ahaa gurigiisa iyo shaqadiisa iyo iskuulkiisa iyo akhlaaqdiisuna way fiicneed marka dadkan iyaga is ugaarsanayaan labada xaafadood xaafada isku dilaan. kadib marka dilka uu dhacay booliisku way yimaadeen waxay sheegeen baaritaan inay wadaan ilaa hadda maxay ku wargeliyeen booliiska dilka Allah u naxariistay Haashim kadib? ilaa hadda wallaahi wax wara aan ka hayno intaa yareen miiska laga soo daayo oo maaragtay ay naga tusaayeen kaamirada mooye wax kaloo ilaa hadda la hayo ma hayno anagu. wallaahi anagu kolley kayagii wuu dhintay mana soo noqonayo laakiin wuu iska fiicnaan kuwa dambe inuuna galaasanin oo haddii la qaban lahaa oo dadka kale ka ammaan heli ka badbaadi lahaayeen oo fiicnaan lahayd laakiin anagu hadda waxaan ka qaban karno maba jirtoba kayagiina ma hayno alxamdulilah kuwa ku samra allaha naga dhigo. aamin allah u naxariisto. waxaad iiga warantaa community badan amaba ururo soomaalida inay u shaqeeyaan sheega ayaa Toronto ku yaala oo dhowra dabcan ilaa hadda ma jira wax kula soo xiriiray oo kula taagan sidii Allah u naxariistay Haashim uu cadaalad u heli lahaa? ay weli ma hayno dee hadda wax community-na garab taaganoo nadaba ordaya maanaan arag laakiin hal community way yimaadeen waxay dhaheen dee waxaan mar walbuu dhacaa laakiin weli wax nala soo socodsiiyo oo dhahayo waxaasaan anagu idinla qabaynayna waxaasaan wadnaa maanaan arag weli. maxaad u jeedin lahayd soomaalida? dilalka way socdaan maalin walba guri ayuu gaarayaa waad aragtaayo wiilashii ayagoo dhalinyaraa maalinba mid la dilayaa. soomaalida weli hurda sugaya in albaab kusoo garaacdo maxaad dardaaran u jeedin lahayd?
dardaaran waxaan u jeedin lahaa inay maaragtay feejignaadaan soomaalida jiifka ka kacaan, ilmahooda u taliyaan, matrahawsinkana ka guuraan, sidii ay horumar ku gaari lahaa inay ilmahoodana ku badbaadi lahaa inay sameeyaan. hooyooyinkan maaragtay ilmahooda intay wax dilayaanna guriga ku haystaa ma dhoofinayana inay systemkaa iska bedelaan, ay dhegta ka qabtaan, booliiska u geeyaan, in cadaalada lala tiigsado. because waxa weeyaan haddii kale waxaana wuu sii soconayaa un soo maaha. haddaad cunugii maanta hadduu intuu dilaad qarisi berrina mid kaluu soo dili. hata ilaaha u naxariisto haashim, mar kale waan kaaga tacsiyeynayaa, waxaana u rajeynaynaa in ilaahay jannadiisa uu ugu bishaaraya. aamin ya rab, insha allah, ilaahay idinkiisa. taasi waxay ahayd Fadxiye Warsame Faarax oo hooyada dhashay Haashim Cumar Xaashi oo toddobaadkii hore lagu dilay magaalada Toronto ee dalka Canada. waxay u warramaysay wariyaha VOA-da ee dalkaasi Xuseen Nur Xaaji. haatanna aanu aadno dhinacii heesaha. waxbaa jira aan la sheegin, warbaa jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay, wadaa jirta aan la qadin. waxbaa jira aan la sheegin, warbaa jira aan la baahin, wadiiqada aad ku foofto mid weyn bay ku wataay, wadaa jirta aan la qadin. wanaaga haddii la dadsho xumaan weel lagama buxsho, wanaantu hadday cidlowdo wadeeca kula degaysa, wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga. wanaaga haddii la dadsho xumaan weel lagama buxsho, wanaantu hadday cidlowdo wadeeca kula degaysa, wadkaaga qofkii u xiisa kusii wehel caanahaaga. jacaylku hadduu wareego walaalnimada ka fiican, walaalnimada ka fiican. jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican, walaalnimada ka fiican. wadayga quudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo, naftaada aadan u waalin, hankaaga dartii u weeqin, weydaaraba dhaanta. wadayga quudhaadu doonto samaanta kolka ka weydo, naftaada aadan u waalin, hankaaga dartii u weeqin, weydaaraba dhaanta. wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso, dareen wadnaha abbaaray hadduu weel. intaasina waxaan dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa idaacaddayadii saaka iyo caalamku idinla socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Maxamed Cabdi. inta haddii la idhaahdo idaacadaha soo socda aan ku kulmi doono, sidaas iyo subax wanaagsan. wareegtada caashaqaaga wabaayo hadday dhalayso, dareen wadnaha abbaaray hadduu wehelkii ka qusto, walacabuu keenayaay adoon qubin waanadayda. jacaylku hadduu wareero walaalnimada ka fiican, walaalnimada ka fiican. jacaylku hadduu wareero
walaalnimada ka fiican walaalnimada ka fiican